الله الرحمن الرحيم waxaa maalinka saddexaad inoo socda dejinta qorshe sanadeedka buugaagta dugsiyada oo inoo soo bilaabmay laba beri ka hor oo inoo furay agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir. barnaamijkan ayaa socon doona muddo 2 toddobaad ah waxaana ka shaqeyn doona 40 macallimiin oo isugu jirta macallimiin wax ka dhigta heerarka kala duwan waxbarashada haday aan lahayd kalaasyada hoose dhexe sare iyo jaamacadaha. ujeedka ugu weyn oo halkan aynu u wada joogi doono 2 toddobaad ayaa ah in la diyaariyo ama halkan lagu dejiyo qorshe sanadeedka buugaagta dugsiyada ama scheme of work oo loo baahan yahay in uu ku dhaqmo macalinka kaas oo macalinkana ka suurtagelin kara in si nidaami ah uu u dhameeyo manhajka qaranka fasalada markaas uu ku qoran yahay. wuxuu sidoo kale macalinka uu ka saacidi doonaa in shaqadiisa ay u noqoto mid nidaam ah ardayga Soomaaliyeedna u noqon doonto in sanadkiisa markuu dhamaado hadafkii laga lahaana in ardaygaas oo ah in buugii manhajka qaranka inuu qaato imtixaanka qaranka markuu fadhiisanayo imtixaanka fasalka 8 dugsiga dhexena uu yahay arday u diyaarsan oo dhammaan soo qaatay mowduucyadii loo baahnaa si guud iyadoo ay jirto dhibaatooyin ama problemyo iska qaar ah oo ardada markay imtixaanaadka ku dhacayaan oo kale suurtagelin kara in ardayga buuga manhajka uusan dhamaysan ama uu ka qaatay dhowr jabtar kadib sanad dugsiyeedka uu sidaas ku dhamaaday taasna way tahay arin fashalinaysa ama haddii scheme of work uusan macalinka ku shaqeynina oo yahay in ardayga imtixaanku ku dhaco taasi ay sababaysaa marka in macalinka uusan lahayn. kadib markii 2 toddobaad halkan ay ku soo dhamaato qorshahan dejintiisa oo la dhameeyo dhammaan maadooyinka qorshahooda waxaa loo gudbin doonaa feeskiisa labaad oo mar labaad akhris in lagu sameeyo kadibna feeskiisa saddexaad loo gudbin doonaa markaas kadibna waxa uu noqon doonaa mid la soo shaaciyo oo dhammaan macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada gobolka Banaadir ay ku dhaqmaan qaybta quality assurance-ga ee kormeerka agaasinka waxbarashadana uu ku kormeeri doono dhammaan manhajka qaabka uu socdo meesha uu maraayo iyadoo lagu dabaqayo kalendarka sanad dugsiyeedka 2021-22 oo aan ognahay in ay soo gali karaan xilliyada fasaxyada maalmaha ciida iyo maalmaha xurriyadda ayna soo gali karaan dhammaan iyadoo intaas loo fiiriyay oo sanadkii markii laga reebo bisha June iyo July loo baahan yahay ardayga inuu waxbarasho toos ah qaato 36 isbuuc iyo dhowr maalmood ama 35 isbuuc sidoo qorshe ay yahay taana marka ay ka saacidayso ardayga before midterm wuxuu manhajka qaadan lahaa ardaygaas in already scheme of work ama qorshaha uu ku diyaarsan yahay macalinkana laga rabo markuu sanad dugsiyeedka midtermka markuu dhamaado ama half ka mid ah markii dugsiyada ay dhamaato December 11keeda imtixaanaadka midtermka bilaaban doono sida jadwalka ku xusan dhammaan dugsiyada gobolkana ay soo gaari doonaan kalendarkaasna ay arki doonaan before ka hor marka in hadafka laga lahaa marka buugaagta manhajka ama inta la rabo inta cashir ama inta jabtar la rabo ardayga inuu qaatana runtii lagu soo dejin doono qorshahan maanta halkan aynu u wada fadhino dhammaan macallimiinta halkan ku sugan. waxaan rajeynaynaa markii halkan uu inoo dhamaadana oo akhris labaad akhris saddexaad la marsiyana in macallimiinta gobolka ay wax badan ka saacidi doonto nidaamka waxbarashadana ay wax badan ka bedeli doonto 300,000 oo ku dhawaad ardayda waxbarashada gobolkana ay runtii u sameyn doonto macna gooni ah macallimiinta ayagana wax ka shaqeeyna ay runtii arintaas ay saacidi doonaan.